السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاتي وناسين خيارتي إذا هودا نقل صعوتها كسر دوادا برنامج كيني دعوين كدنيا وعضها نوكلات كلا صعوتها تلفيش كعالمي جي هون كيبل تي في alaaba barnaamijkan ayaa waxaan ku soo qaadanaa mucjisooyinka dunida uga la yaab ka badan rabbaaniga ah dadka diinta islaamka ku soo biiray dunida islaamka iyo sidoo kale waxyaalaha laga qayb galo Guinness Recordka ujeedada barnaamijkan ayaa ah inaad wax badan ka ogaato daawada oo kala socoto wax badan dunida ka dhaca laakiin si ujeedadu ma inaad isku daydo inaad samayso wax badan oo naftaada dhibaato u keeni karaya sababtoo haddii aan nahay ummad islaama markeedu horeba waxa xaraan naga inaan sameeyno wax walba nafteena dib u keeni kara ilaahayna raali naga maaha ujeedada ama barnaamijkan waxaan ugu talagalnay ayuunba ah inaad la socoto wax badan oo dunida ka dhaca si aad ogaato inay wax badan ay yihiin qalad wax badanna ay yihiin wax rabbaani oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala keeno barnaamijkeena waxa ku jira qodobo badan oo xiiso leh oo isugu jira dhacdooyinka dunida oo Guinness Recordka laga qayb galo xasuus qorka loo yaqaano iyo mucjisooyinka rabbaaniga ilaahay subxaanahu wa ta'ala koonkan ku abuuray qodobka ugu horeeya haddii aan soo qaato Reja waa hooyo ku dhalatay dalkaas India ku nool waxa ay noqotay markii kooxaha Guinness Recordku baaritaan fara badan ay sameeyeen in ay noqoto hooyadii dunida ugu weyneyd oo hooyo noqota marka tiraado hooyada dunida ugu weyn hooyo noqota de hooyo kulli sideeda horeba qof weyn baad filanaysaa laakiin se tan way ka duwan tahay hooyadan waxay recordka dunida ku gashay in ay noqoto hooyadii dunida ugu weyneyd iyadoo da'deedu dhowr iyo 70 kor u dhaftay ayaa maxay dhashay aan eegna bal qisada ku dhex duugan iyo hooyo Reja sidii ay noloshaasi ula soo gudubtay marxaladda ay soo martay iyo sidii markii dambe ay caan ku noqotay waxaad moodaa hooyo 30 jir laakiinse waa 75 jir waxaana magaceedan loo yaqaanaa Reja Defi Lohar waa hooyada dunida ugu weyn waxa ay dhashay gabadheedan yar iyadoo 70 jir ku dhow waxaana loo aqoonsay dunida inay tahay qofkii ugu daada weynaa ee hooyo noqda inta adduunka ku nool ee lahayo tiro koobkooda Reja waxa ay dhashay markii ugu horeysay nolosheeda gabadheedan yar iyadoo da'deedu ay tahay 70 ilaa 69 waxaana noqotay gabadhii ugu la yaabka badneed dunida marka loo eego da'da ku dhashay taasana u ogolaatay inay record ka gasho arintaas ayaa la yaab ku noqotay dunida waxaana si weyn u soo jiidatay indhaha saxaafadda caalamka oo ay ku qoreen booga hore joornaaladooda dalka Hindiya marka loo eego waxay arintii ugu horeeyay tan oo kale ay dhacdo waxaana noqotay sheeko aad u caan inta badan dadku iska wareystaan islaantii nolosheeda ugu horeysay dhashayada da'deedu ay ku dhowdahay 70 waana markii ugu horeysay ayagu arkaan islaan da'daas oo dhashay ilmo yar waxay inta badan ku noqonaysaa dadka mucjiso dadka intii maqashaan arkina la yaab ay ku noqonaysaa waxa kaliya qaadan karaya qof indhihiisa ku arkay 5 sano kadib ayaa waraysi laga qaaday Reja waxaana ka sheekaysay sida ay ugu faraxsanayd ilmahaasi markii uu dhashay iyo la yaabka dadka wixii keenay waxaanay tiri anigoo cimriga jiray Ilaahay ugu arsaaqay ilmo yar taasna wada keentay bulshadu inay la yaabto waayo hore uma arag ruuxdeeda soo gaaro ilmo dhala laakiin dunidu waayaheega badan wax walbana wala arki kara ilaa dhalinyarnimadeedii waxaan iska jeclaysan jiray inuu Ilaahay siiyo ilmo ama ubad fara badan markaan arko dadka ubadkooga ciyaarsanaya waan iska maraqoon jiray markii dambena niyadda waxaan ku qaban jiray inuu Ilaahay ilmo yar siiyo waxaan ma kasta jeclaan jiray in ilmo yar aan dhalo aan la ciyaaro oo aan dhabta ku hayo dadka jaarku markay ubad dhalaan xafladii u sameystaan waan iska qiiroon jiraana waxaan jeclaan jiray in mar uun ilmo dhalo saan xaflad ugu dhigaa aniguna markay ii dhalatay gabadhaydii ugu horeysay wax ii yimi jaarkoo dhan waana ku farxeen ilmihii dhashay dhammaan dadka tuulada dhan ku nool way yimaadeen waana soo eegi jireen waxay ku farxeen ilmaha yar Ilaahay siiyay hantidan qaaliga Ilaahay ugu manastay Reja waxay ku nooshahay tuulo yar oo loo yaqaan oo ku taala waqooyiga dalka Hindiya waxaana la nooshay xaajigeeda oo da'diisu yahay 78 jir waxaanu xaajigeedu qabaa xaas kale oo da'deedu ay tahay 63 jir waxay inta badan caawisaa dangaleeda oo xanuunsata mararka qaar waxaana aad u xanuunsatay markii ay umushay gabadheeda iyadoo da'deedu ay 70 jir markii ay Reja caloosha ku siday gabadheedan yar ayaa waxa la soo dirsay xanuun halisa oo nolosheedii ragaadiyay inta nolosheeda ka dhiman ay dhaqaatiirtu sheegeen inaanu dawo lahayn laakiin loo baahan yahay ilaaliso caafimaadkeeda aad uga taxadirto dhakhtar kale ay ka bixin ilaa inta ay muddo ka raysanayso dhaqaatiirku waxay ugu yiraahdeen markii aan neefin dhalay dhakhtarka iska jooga ka bixin haddii kale xaaladda aad buu xumaanaysaa nasashaad u baahan tahay saas igula taliyeen markaad nasato ayaa bixi doonta bay ugu yiraahdeen laakiin anigu waan maqal waayay taladii dhakhtarka taas sabab u noqotay in caafimaadkaygu sii xumaado waayo aniga diiday in nafteeda ilaaliyo
halkaan soo gaaray caafimaadkayga aniga halis soo gaarsiiyey oo u sababa waxan oo dhan iyadoo xanuunka la nool Reja dhakhaatiirtuna ay sheegeen inaan wax dawaa loo haynin balse ay tahay teeda ayaa haddana waxa ay hooyadani aad iyo aad ugu hamiyeysay Reja in ay hesho ama ay aragto mar gabadheeda yar Neven la yiraahdo oo weynaata dabata aroos ay noqoto guri yeelata waxa ka mid ahaayeen farxadaheega ay ku hamiyeyso inkastoo xaaladeeda caafimaad uu soo xumaanayay waxay inta badan ku celceliso ay tiraahdo waxaan jecelahay inaan mar arko ubadka ay dhashay gabadhaydu aan ayadu noqon doono ujeedada noolahay waa inaan arko inantayda aroosa oo faraxsan inkastoo aan ogahay in xanuunkan halista yahay haddana waxaan niyadda ku dhistaa in iska bogsan doono waxay hayo dhan waxay gala qaalsan farxadda inantayda waa qof qaaliya Ilaahay baan u mahad celinay waxaan Ilaahay ka baryay in Ilaahay naftii daayo ilaa aan ka arkay gabadhayda aqal gashay qoyska dhame aad ay u jecel yihiin Neven waana daryeelaan haba yaraatee wax dhiba lama kulanto waana qoys isku duuban oo isku faraxsan sidaas darteed Reja kama warwarayso iyada dabadeed inay gabadheedu dhibaato fara badan la kulmi doonto ujeedada noolahay waa inaan arko inantayda aroosa oo faraxsan inkastoo aan ogahay in xanuunkan halista yahay haddana waxaan niyadda ku dhistaa in iska bogsan doono waxay hayo dhan waxay gala qaalsan farxadda inantayda waa qof qaaliya Ilaahay baan u mahad celinay waxaan Ilaahay ka baryay in Ilaahay naftii daayo ilaa aan ka arkay gabadhayda aqal gashay Neven qaali bay igu tahay anigu kama maarmi karo iska daa saacada ilbiriqs ma waay karo hadday iga maqnaato ma joogi karo indhahayga ayay noqotay waan jeclahay waan ilaalin doonaa nolosheeda dhan waan ogahay haddii ay hooyadeed weydo ma waay doonto kalgacaylkayga waanu ilaalin doonaa nolosheeda oo dhan geeridu waa xaq Ilaahay baa ogkayga horreyn doona laakiin anigu xaggayga waan ilaalin doonaa inantaas waxaan igu ahaa doontaa qaali inantaas ma dayacmayso inta nolosheeda ka dhiman waxayna ku noolaan doontaa farxad waa qof yaroo dahaba wanaagsan oo Ilaahay u dhammaystiray qurux iyo wanaag dhammaan dadka guriga jooga oo dhan way wada jecel yihiin kamana maarmi karaan wehelkeeda way xiiseeyaan qoyska oo dhani runtii mana jeclayna mar kaliya tawaayaan Reja waxay la nooshahay gabadheeda Neven waxaana siisaa talooyin wax ku oola oo ku saabsan dhaqankooda waxaana had iyo jeer ku faraxsan tahay inay la nooshahay gabadheeda yar waxaana inta badan Reja sugtaa inay maalin arki doonto gabadheeda Neven oo faraxsan guri yeelatay ubadna Ilaahay siiyay waxay ka mid tahay arrimaha ugu waaweyn ee ay hadda ku hamido arintaas ayaa arin aad u la yaab badan kadib kooxaha Guinness Recordku markii ay warbixintaasi heleen baaritaan ay sameeyeen ayay ku soo ogaadeen waxaanay kadib u aqoonsadeen 70 jirkan in ay tahay gabadhii ugu horeysay dunida ee iyadoo da'daasa dhasha ilmo yar inta ay taariikhda iyagu hayaan waxaanay noqotay sheeko xoog badan oo aad iyo aad loo rumaysan waayo laakiinse aan ay ka noqotay dhammaan dalka Hindiya iyo caalamka oo dhan سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى سجى كوكان أبوري إلهي مركا ودوني شيء وسميه وحو إلهي رهضة سيد القرآن كان يقول شيء كن فيكون إن هدي استراحة وحنا كلام دعي كريان وحاران هدي قف إسلامه إلهي آمسن وإلى آمنتها وحول بدوني ده إنه إلهي سبحانه وتعالى كينه كرو إلهي سجى إن أبوري إنه وحبا هين إلهي وحبا الله معها قف بقول ترى أما إسلام ستة تجرته أما تدبات تجرته إنه المسيح waxa ku cadeynaysa Reja in badan ayay sheegtay waxay ahayd dadka ubadka jecel dhalinyarnimadeedii Ilaahay waxba ma siinin odageedu 87 jir weeyaan way samirtay waxay samirto oo Ilaahay ay barido Ilaahay 27 jir ayaa ku siiyay ilateedii ugu horeysay waliba iyadoo da'daas ayaa haddana waxay ku hamiis dadka qaar baa soranaya maxay ka dhashayadii baa arda oo gabadh waliba iyadoo da'daas ku hamiisa mustaqbalka inay aragto gabadheed oo la guursaday oo aroosa oo ubad dhashay waxay jeceshahay hooyadan ayaa waxay jeceshahay inay aragto gabadha ay dhashay ubadka ay dhashay ayada ay noqon doonto adigu waxba la yaabantay iyaduna waxay ku hamiyeysaa mustaqbalka Ilaahayna waxba lama aha in uu rumeeyo Ilaahay waa sidoo doonayay hadii aan qodobka ku dhaafo ajiibka ah muujisada badan waxaan u wareegi doonaa dhacdooyin la yaab leh oo kooban dhowr ilaa 8 ilaa 7 qaybood ka kooban oo kamid ah waxyaalaha dunida ugu la yaabka badan leh hadii ay yihiin dadka magacyada ku gala dunida waxyaalaha naftooda dhibaato u keeni karaya iyo waxyaalaha iyadu dabiici ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku manaystay oo qofka kala dheeriyay inta badan dunida waxyaalaha laga qayb galo Guinness Recordka ayaa kamid ah waxay dadku isku dayaan oo laga yaabo hadhow inuu marka dambe dhibaato u keeno iyo wax rabbaani oo Ilaahay ku beeray balana qodobadan xiisaha badan leh waxyaalaha ay ka kooban yihiin iyo sida ay ku galayaan buugga loo yaqaan xasuus qorka dunida ee Guinness Recordka
waa dhacdooyin aynu ku eegi doonaa arrin aad rumaysan karin jiritaankeeda balse jirta taasoo isugu jirta mucjisooyin iyo waxyaabo kale oo ay dadka qaar ay sameeyaan. Tom Stanford waa ninkan dhalinyarada ah waxaana uu la nool yahay xaalad cusub oo la xidhiidha caafimaadka oo loo yaqaano MDB syndrome. Xanuunkaasi ayaa sababay inuu jirkiisu ka dhigo mid aan weligii hilib badan yeelan oo uu ahaado harag madhay. maalinba maalinta ka dambaysa uu sii laciifayaa, weligiina jirkiisa lagama helin wax duxa amaba dufanaa. waxaana ay u aqoonsadeen naftiisa kooxaha World Guinness Recordsku inuu yahay ninka dunida ugu dhuuban ee aan weligii dufan amaba hilib badan yeelan. waana mucjiso rabbaaniya waxa uu isugu keensaday amaba uu iska dhigdhigay maaha, laakiin waa mucjiso rabbaaniya. adduunka wax waloo dufana amaba lagu naaxo haddii uu cuno wax ka dhaca mooyaane waxba uma kordhaan. waxaasoo dhibaataana waxa ugu wacan xaaladda uu la nool yahay. ninkani waxa uu ka mid yahay dadka ugu layaab kala badan leh dunida marka loo eego xilqada xidhashada. waxaana uu jirkiisa meel walba ka lulay in ka badan 453 xilqadood oo nooc walba isugu jira. magaciisa waxaa loo yaqaanaa Rolf Balchos. waxa uu rikoodhkan World Guinness Record uu ku galay inuu yahay ninka ugu badan dunida ee meel walba biro amaba xilqado laga laalaadiyo isagoo u badheedhay halista inuu naftiisa geliyo si uu magac u yeesho. waana muuqaal la yaab ku noqday dunida kadib markii uu sameeyay waxyaabaha dunida ugu halista badan oo ah inuu naftiisa u badheero waxyaabo dhimasho ku keeni kara. inuu naftiisa u horseedo waxyaabahaas uu ku keeni kara dhimasho amaba dhibaatooyin badan. noloshiisa kama fakarayo, laakiin dadka noocan oo kale ah inta badan waxay ka fakaraan magacooda. waxaana ay jecel yihiin mar walba inay dunida caan ka noqdaan. waxaasoo dhan ugu wacani waa diin la'aanta. innagu waxaynu nahay dad islaama, sidaa darteed diinteenna suubani waxay naga ilaalisaa wax kasta oo dhib inoo keenaya. sidaas darteed waxa xaaraan inaga ah inaynu waxaasoo kala samayno amaba waxyaabo dhibaya nafteenna. ruuf wuxuu arrinkan sameynayay oo uu dhagahan iyo waxyaabahan kale xilqadaha uu iska laalaadinayay ilaa inta da'diisu ay ka gaadhaysay 41 jir. waana ninka kaliya rikoodhkan haysta ee hadda dunida ku nool. waana arrin ay aad ula yaabeen warbaahinta dunidu. dadkuna marka ay meelaha ku arkaan waa ay daawadaan ninkan iyo waxyaabaha uu xidhan yahay. qof waliba waxa uu la yaabaa sida uu ninkani naftiisa u galay. hase yeeshee isagu waa mid ku qanacsan arrinkan uu sameeyey. Batri Duwal waxa uu noqday ninka dunida ugu buuran, waxaana uu noqday miisaanka culayskiisu 486 kilogram. waxaana loo yaqaanay ninkii haftanka ahaa. sidaas ayaa loogu aqoonsaday ninka dunida ugu culus uguna buuran. kadib markii dadaal badan la sameeyay si loo yareeyo culayska miisaanka jirkiisa, ayaa hilib fara badan oo ay ka jareen dhakhaatiirtu aakhirkii waxay ku guuleysteen inay dhimaan culayskiisa ilaa 700 oo bond. waa halis dadka noocan oo kale ah, waxaanay naftooda ku yihiin duulaan. waayo waxaan oo dhan waxa sababa cuntooyinka faraha badan leh ee aan dheelitirnayn. sidaad waxyaabahaas oo dhan amaba cudurradaas oo dhan aad isaga ilaaliso, ku dadaal inaad mar kasta isticmaasho cuntooyin dheelitiran oo caafimaad fiican aad ka hesho. waayo haddii aad naftaada ilaalin weydo waxa ku dambaynaysa arrintan oo kale. Arlindo waxa uu dunida World Guinness Recordska ku galay inuu yahay ninka ugu muruqa buuran dunida. waxa uu isticmaalay cabitaano kala duwan oo keenay inuu noqdo muruqiisu sidan. waxaana ay tani ku keentay mushkilad caafimaad darra. taas ayaa keentay inuu mar walba sii siyaado muruqyadiisu, taas oo keentay markii dambe in kantaroolka muruqyada uu ka baxo meesha. waxay taasina ku keentay mushkilad caafimaad darro oo xagga muruqiisa. laakiin mar walba waxa sii siyaadaya muruqyadiisa oo ka baxay kantaroolkii loogu talagalay. mararka qaar waxay ku sigtaan inay noqdaan sidii wax qarxaya oo kale. laakiin iyadoo ay sidaa u dhibayaan muruqyadiisu ayuu haddana ku faraxsanaa. waayo keliya waxa uu doonayay inuu ku galo buugga xusuus qorka si uu magac dunida ugu yeesho. inkastoo uu isugu haysto faan, laakiin dhakhaatiirtu way ka digeen xaaladaha noocan oo kale ah. loomana ogola inuu qofku sameeyo waxyaabo muruqyadiisa soo saara oo ka baxsan miisaankii loogu talagalay amaba nidaamka caadiga ee jimicsiga. waxaase markii hore rikoodhkan haystay ninkan oo isna loo yaqaano Mustafa. isagu waxa uu hore buugan ugu galay si dabiici ah oo aanu isagu muruqa samaysan, balse si rabbaaniya ayay muruqu samaysmay.
sida Arlando oo kalena ma uu isticmaalin waxyaabo kiimika aniga naxayba mid muruq samaysta mid bir halkan iska laalaadiya nooc walba way leeyahay laakiin waxaad ogaataa dadkaasi intooda badan waa waxa ay iyagu samaysteen dhibaato u keeni karaya waxa soo kale samaysa waa xaraan in isku dayda waa xaraan waa naxayba muruqyada markii arkay ninkani alcohol iyo waxyaalo isku dardaray ayaa heer ka gaarsiiyay isagu magac buu doonay laakiin dhakhaatiirtu heer waxay gaareen ay yiraahdaan ninkan waxa laga dayrinaya caafimaadkiisa waxa uu ku dhow yahay in haddii sida ay ku sii socdaan ay qarxaan muruqyadiisuba waa la kala warlaayay ninna wuxuu doonayaa magac naftiisiina ma eegayo dhibaato inuu u keenayo in kale haddii aynu qodobadaas ama qaybaha kooban ee World Guinness Recordkan ku dhaafno waxaan ku wajin dhacdooyinkii dunida waxaynu dul istaagi doonaa gabadh ku dhalatay dalka Mareykanka Linda waxay ku dhalatay arrin la yaab leh oo aan hore loo arag iyadoo dhalinyaro ayaa waxay dhalatay iyadoo bilaa gacmo ah waxaana cudurkaasi ay ku dhalatay u koosgareeyay inay gabi ahaanba ku dhalato iyadoo lixaadkeedu dhamaystirnayn way barbaartay Linda heer ay gaadhay way guursatay wiil ay dhashay wiilkiina waxa uu ku dhashay iyadoo kale isagoo ah oo bilaa gacmo ah haddaba waxaad isweydiinaysaa qoyskan bilaa gacmo ah laakiinse odaygeedu caadi buu dhamaystiray laxaadkiisu laakiinse labadan sadhal ayaa bilaa gacmo ah judhaba waxaad isweydiinaysaa dadkaas sida wax u qabsadaan Linda nolosheeda waxay u qabsanaysaa oo ay barbaarinaysaa ubadkeeda wiilkeeda sidii inay gacmaheedii dhamaystirayeen oo kale waa cajiib بقدرة الله إلهي سبحانه وتعالى هدو قف لنع كنسقاميو ميل كلا أيو إلهي وقليا هدو إلهي قاعميه كقاضي وموين إلهي لكن سيناق الله إنه كتصيا يضع السيدة طيبة عندنا إلهي مسكح دي وحسية إلى لجوه ذو كأذيك سدان لبدو دبا سيدة وحقب صلى هيان وحبق وعدو جمع بعضان وحي أو بعض الإرادة وذي كذا قرب تاجر فلا نجح هذا بالشيء كذا لا يبقى ليندا يويل كذا تيمي كانوا تجي وحيش شاجان حالة المهيجة يينو بكاي هاي كدي بارما بدن أيسو بندقان waalidkay ayaan la tashaday waxaan idhi anigu waxaan doonayaa family dhammaystiran waanan ku qanacayaa wax walba oo ii qoran cidina ma bedeli karto sidaas ayuu ku dhashay wiilkaygu isaga oo bilaa gacmaa 2004 ayaa Linda iyo Rijel ay iskuursadeen oo ay yagaleeleen guri kalkacayl ku dhisan laakiin Linda markii ay qaaday uurkeedii u horeeyay marna meesha kamay filanayn inuu dhalan doono ilmo lamida oo ku dhalan doono bilaa gacmo sidii ayaduba ku dhalatay xaaladaasi ayaa ahayd mid iyada ku cusub laakiin waxayd mucjiso rabbaaniya oo Ilaahay ugu talagalay adoomuhu inay ku cibra qaataan anigu waa inaan caawiyaa ubadka dhibaataysan ee sida ilmahayga oo kala waxaan ka dagaalamaa in la takooro oo waliba aad loo yeeso dadaalkaygu waa sida waa inaan caawiyaa cid walba oo dhibaataysan oo gargaar bilaadanimo u baahata anigu waan caawiyaa wiilkayga oo waliba aad ayaan u jeclahay ma doonayo inuu ciilo ama uu u baahdo cid kale aniga markii la soo gursaday ayaan ka soo wareegay ehelkaygii waxa booskii buuxiyay ninkayga oo aan aad u jeclahay 2005 ayaa u dhashay wiilkoodii isagoo xaaladiisu aanay caadi ahayn kadib qallido ay galeen dhakhaatiirtu waxay ku guuleystay markii dambe inay noloshiisa badbaadiyaan hase ahaatee waxa uu dhashay wiilkeedii Linda isagoo bilaa gacmo ah sida ay hooyadii Linda ku dhalatay inkastoo ay xaaladan adag tahay hooyadiina ay la soo martay dhibaato adag ayaa haddana isaga waxaa sugaysaa noloshii hooyadii soo martay laakiin hadda isagu uu ka nasiib badan yahay hooyadii sababtoo ah hooyadii ayaa rafaadkan hore u soo martay waxaanay hadda aqoon u leedahay sidii ay wiilkeeda ugu tarbiyadeyn lahayd sidii uga gudbi lahaa rafaadka iyadu la soo kaca kuftay waa hooyo aad u wanaagsan waxaanay wiilkeeda timi iskuma dhibto wax walba way u qabataa waxaanay siisaa garab laxaad leh oo aad u wanaagsan oo cajiiba waxa uu hooyadii ka helaa tababar wanaagsan sidii loo tababarayay ayaa waxa uu gaadhay yaraantiisii isku filnaansho waxaanuu bilaabay inuu qabsado wax walba noloshiisu ay u baahan tahay waxaan wax walba u qabsanay isagoo bilaa gacmo lagamana dareemayn inuu bilaa gacmo yahay lugihiisa ayuu adeegsanayaa badalkii gacmihiisa arrimahani waxay ku tusinayaan macaanka ay leeyihiin nimcooyinku Ilaahay na siiyay inoo dhammaystiray waana alla mahadi in lagu cibro qaato ayaa loogu talagalo mudan Linda waa geesiyad aad u adag iskana ilaalisa jiljileeca weligeed kama ay dalban cid caawimo wax walba u baahato waxay isku daydaa inay iyadu qabsato wadajir ayaana iyadii wiilkeeda iyo xaajigeed u qabsadaan waxa kaliya caawiya markay wax u baahato odaygeeda oo had iyo jeer hiil iyo hoo la garab taagan haddii ay noqoto cunto karinta haddii ay noqoto adeegyada kale Linda waa gabadh adag oo u baratay u soo bislaatay sidii ay wax walba u qabsan lahayd waxaana wiilkeeda ku tababartaa inay barto waxyaalo fara badan oo jimicsiga kamid ah oo ay ciyaaruhu ugu wanaagsan yihiin Linda waxay qabsataa adeeg walba ay u baahato iyadoo adeegsanaysa lugaheeda hadday noqoto isqurxinta iyo inay sagaajiso waxay qabataa wax walba ay u baahato waxaana inta badan caawiyo odaygeeda oo mar walba garab taagan wuu gargaaraa wuu garab taagan yahay
aadna waan u jeclahay anigu ninkayga iyo wiilkaygaba ilaahay haydaayo nolosha aan ku noolahay aad ayaan ugu faraxsanahay welibana waan ku qanacsanahay waxaanan ku dadaalaa wiilkayga mustaqbalkiisa inaan dhiso anigu xaaskayga waan caawiyaa inkastoo iyadu bilaa gacmo tahay haddana wax walba u baahato way qabsan kartaa laakiin wixii ka durugsan ama iyadu gaari weydo anigaa ka caawiya waayo hadday bilaa gacmo tahay anigaa gacmo u ah oo garab taagan iyadiyo wiilkaygaba aad ayaan u jeclay labadoodaba tini waxa uu wax u bartaa sida ciyaalka la midka ah dhammaystiran yihiin laxaadkoodu isagoo lugaha u adeegsanaya sidii gacmaha oo kale waanay u dhib yartahay ilaahay ayaa beddelkii gacmaha u geliyey lugaha wax walbana halkaas ayuu ku qabsadaa waxaanu u bartaa waxbarasho si fiican mar walbana waxa uu galaa kaalmaha ugu horreeya ardayda kalama kulmo takoor dhibaato fara badan kalama kulmo waxaanu qabtaa wax walba oo u baahno isagoo inta badan aan isticmaalin in la caawiyo oo ay dadku garab siiyaan laakiinse waxa uu mar walba isticmaalaa maskaxdiisa iyo lugihiisa inkastoo mararka qaar ay caawiyaan ardaydiisu kuwaasoo aad iyo aad u wanaagsan waxaanay hooyadii soo bartay sidii uu cid walba uga maarmi lahaa uuna u noqon lahaa qof lugihiisa isku taaga jilaya cafaraha badanna iska daayo taasi ayaa keentay mar walba inuu asxaabtiisa ka maarmo oo uu isagu keligii lugaha wax ku qabsado laakiinse mararka qaar ayaa uu garab ka helaa asxaabtiisa kuwaasoo ah kuwa dadka ay isugu dhow yihiin oo inta badan caawiya maamulaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekaynayaa sida timi uu xariifka u yahay iyo sida uu yahay wiil wanaagsan oo ku dayasho mudan liinde iyo wiilkeedu mararka qaar ay ka soo noqdaan suuqa amaba adeega ay doonayaan ay ka yimaadaan haddii ay waxbarasho noqoto isaga xaggiisa iyadaba shaqada waxay ku ciyaarsiisaa wiilkeeda biyaha waxaanay u tababartaa sidii uu baran lahaa dabaasha uu naftiisana u badbaadin lahaa haddii ay duruufutan oo kale ku keento waxaanay siisaa jimicsiyo kala duwan oo ku caawinaya inuu noqdo qof isku filan oo dadka ka maarma waa hooyo ku dayasho mudan oo geesiyada waxaanay la dagaalantaa dhibaato fara badan oo ku iman lahayd wiilkeeda waxaanay mar walba ka hor tagtaa jiljileeca faraha badan leh taasoo laga yaabo wiilkeedu inay dhibaato ku keeni lahayd iyadoo mar walba ku dadaasha inuu wiilkeedu noqdo nin adag oo mustaqbalka wajaha waxaanay mar walba door bidaa wiilkeedu inuu farxad ku noolaado waxay tababartaa wiilkeeda siduu u qabsan lahaa wax walba oo u baahdo haddii ay noqoto cunto karin cabitaan wax walba iyada ayaa u samaysa dharka dareyska iskuulka wax walba ayay u diyaarisaa waa hooye aad iyo aad ugu shaqaysa wiilkeeda si hagarla-aana waxay u bartaa si uu lugihiisa isugu taago oo uu ka maarmo dadka intooda kale waxay ka mid tahay dadka firfircoon linda ee ku jira ururada waxayna inta badan ka qayb qaadataa goobaha lagu wacyigeliya dadka dhibaataysan sidii looga hortegi lahaa sida wiilkooda kale inta badan nafteeda ayay u soo bandhigtaa waxaanay tiraahdaa anigu waxaan ahay dadka hormuudka ka ah sidii loo caawin lahaa dadka special needska amaba dhibaataysan wiilkay ugu horeeyo waxaanan had iyo jeer ku mashquulaa sidii aan dadka u caawin lahaa ayay tiri liinda macalimad adag weeyaan oo karti badan waxaanay ka soo gudubtay marxalado badan oo aad iyo aad u adag waxa ay barbaarisay ilmaheeda waxaanay u barbaarisay si aad iyo aad u wanaagsan hadda timi waxa uu ku dadaalaa inuu lugihiisa ku istaago waxa uu qabsadaa wax walba si qurux badan haddii ay noqoto waxyaalaha lagu ciyaaro haddii ay noqoto waxyaalaha kale loo baahdo sida waxbarashadoo kale waxaasoo dhan waxaa ka dambaysay barashadeeda hooyadiisan aadka u cajiibka badan ee iyadu ku dadaashay ilmaheeda iyadoo bilaa gacmaha isaguna mar haddii uu bilaa gacmo yahay inuu mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dhisto oo uu ku hamiyo uu gaadho mustaqbalka halka uu doonayo maasha allah maasha allah qof kastoo bini aadam hadduu isku dayo inuu hadafkiisa gaadho wuu gaadhaya qoladani uma noolo sidii inay laxaad beeleen oo kale waxay u nool yihiin sidii inay laxaadkoodu dhammaystiran yahay naftooda way ku kalsoon yihiin weliba ilmaheeda waxay rabtaa mustaqbalkeeda sida ay iyadu usoo dadaashay in uu u dadaalo wiilkeeda nasiib badan iyadu way la soo kaca kuftay nolosha laakiinse isagu waxa uu helay hooyo soo tababaratay noloshan la soo amba qaaday noloshan in badan kusoo jirtay waxaana taasi u sahashay inuu isaguna si fudud noloshii ula qabsado oo hooyadii ka helo caawimo aad u wanaagsan ugu dambeyntii hooyadan waxay ku dadaashaa inay samayso shirar fara badan inay horumar ka gaadho sidii dadka dhibaataysan sidoodoo kale loo caawin lahaa waxaanay u tababartaa wiilkeeda sidii uu mustaqbalka u gaari lahaa meesha uu doonayo halkaa haddii aan qodobkaasi ku dhaafo waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena dhacdooyinka dunida oo aynu qaybo fara badan kusoo qaadanay waxaa haddaba qodobkanu noqonayaa lamaanaha dunida ugu dhaadheer waa intee cabirkoodu dherarkoodu intee buu leegyahay dadka aynu soo sheegnay
la leeyahay dunida ugu dheeriyay dherarkoodu ma qayrul caadiba ma iyaga taytarkan haysta bal ku darsay laba ubada ama saddex ubada ay dhaleen laba kamid waxay noqdeen iyaguna ubad kariyar kuwa ugu dhaadheer dunida qoyskan Walgreens Record markii ay soo eegeen layab ay ku noqotay iskuulkii macallimiintu waxay u sheegeen ubadkoodu inay yihiin ardayda meesha dhigata kuwa ugu dhaadheer iyaguna magaalada markay maraan waxay noqdeen qoyskii dunida ugu dheeraa inta cabirkooda la hayo waa lamaanaha ugu dhaadheer dunida oo soo dhaweynaya ilmahoodii saddexaad ee ku soo biiray qoyskooda oo ka kooban aabbo iyo hooyo iyo laba wiil oo kale oo qoyskaasi u dhashay lamaanaha ayaa kadib markii kooxaha Walgreens Record ay ogaadeen cabirna ay ka qaadeen loo aqoonsaday inay yihiin waqtigan la joogo lamaanaha isqabe ee dunida ugu dhaadheer ma jirto cid ku haysata ama lamida booskaasi ay galeen waxa ay ka kooban yihiin qoys wada dhaadheer inkastoo uu aabahood iyo weliba hooyadood ay aad u dhaadheeraayeen waxaa sidoo kale cabir laga qaaday carruurtaasi yaryar ee ay dhaleen labadaasi lamaane ee dunida ugu dheer waxaana baadhitaankaasi lagu sameeyey lagu ogaaday inay iyaguna noqon doonaan ama ay yeelan doonaan dherarkaasi ay waalidiintoodu leeyihiin waxa ay noqon doonaan qaar ka dhaadheer ubadkaasi yaryar ee ay wax isla dhigtaan ama ay dugsiga wax ka wada bartaan maadaama ay rikoodhka dherarka ay hayst iyagana waxaa la sheegay inuu dherarkoodu marba marka ka dambaysa uu sii kordhi doono taasi ayaa lagu sheegay dhaxal hidaraaca ay waalidiintooda ka dhaxleen waxaana baadhitaankan badan ee la sameeyey lagu aqoonsaday markii dambe qoyskaasi ugu dhaadheer dunida marka loo eego qoysaska la midka ah kaasha ayaa tiri aad ayaan ugu faraxsanahay mar haddii ay ubadkaygu iga raaceen oo iyaguna dhigooda ay ugu dheeraan doonaan ama ay ugu dheer yihiin waxaananu noqonaynaa dad dunida ka caano oo la garanayo ama la yaqaano ammaan iyo darajana cidi hore noogumay gaadhin aniga hore waxa ay ku nool yihiin nolol caadiya waana lamaanay isku faraxsan oo aad oo aan haba yaraatay isku mashquulin waxyaabaha laga aaminsan yahay maadaama ay iyada ka duwan yihiin xagga dhererka iyagu waxay aaminsan yihiin inay tahay hadiyad ay dadka kale kaga duwan yihiin waana qoyska ugu horeeya ee liiska xusuus qorka adduunka ee xagga dhererka sidaas ayayna lamaanahaasi ku noqdeen lamaanaha dunida ugu dhaadheer intaas waxaa ku eg barnaamijkeeni dhacdooyinka dunida wadahan oo kale aad kala socota telefishinka caalamiga ee Cable TV barnaamijkana waxay idila socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Coday waxaana igala qayb qaatay bahda codinta iyo bahda online iyo sidoo kale Xamsa Chesto tani inta barnaamijka mid lamid ah ku kulmana xaqiiqa waxaan kaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh